jasiiradda ugu dheer Soomaaliya waa jasiiradda Jawa la yiraahdo oo dhacda gobolka Jubbada Hoose. qiyaastii waxaa jasiiraddan ku nool in ka badan 200 oo qoys. sidoo kale qiyaastii ku dhawaad 500 oo ruux ayaa la sheegay inay ku nool yihiin jasiiraddan. dabcan waa jasiirad deegaan ahaan leh cimilo wanaagsan iyo hawo macaan. waxaa kaloo aan ka marnayn in jasiiraddu laga helo biyo nadiif ah oo weliba aad u macaan. waxyaabaha la yaab kale ee jasiiraddan ay uga duwan tahay jasiiradaha kale ayaa ah in jasiiraddan ceelal biyoodkeeda lagu qodo gacanta iyo in ceelashu ay yihiin kuwa laba nooc ah, qaar biyo macaan leh oo dadku ay u isticmaalaan cabidda iyo cunnada ay ku karsadaan, iyo ceelal leh biyo adag oo culays ah oo dadku ay u isticmaalaan sida in alaabta iyo dharku ay ku meertaan. waxaa kaloo cajiiba in kaliya hal dukaan oo laga helo cunnada, macmacaanka iyo dawada intaba in markaa ay leedahay jasiiraddan oo aan sidaa uga fogeyn magaalada Kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka u ah maamulka Jubbaland. ku darso oo jasiiraddan kama arrimiyo wax maamul ah sida maamulka Jubbaland iyo dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo qaybo badan oo jubbooyinka ah ka arrimiyo. ma laha saldhig booliis ah, sidoo kale ma laha askari qori sita ama sidoo kale dhawaqa xabad oo dhagahaada ku soo dhacaya. taasi oo ah waxyaabaha cajiibka ah oo jasiiraddan ay ugu duwan tahay jasiiradaha kale. dadka deegaanka oo ah dad kooban oo isku qoys ah kala kooban 500 oo ruux ayaa u badan qabiilka la yiraahdo Baajuuniga, waxaana noloshoodu ay ku tiirsan tahay kalluumaysiga iyo in markaa subaxii ay u kalahaan badda si markaa kalluun ay uga soo dabtaan. sidoo kale jasiiraddan waxay leedahay oo nolosha dadkeedu ay ku tiirsan tahay xoolaha nool sida ariga iyo lo'da. jasiiraddan si weyn ayaa markaa looga dhaqdaa, waxaana jasiiraddan ay leedahay hal iskuul iyo hal dugsi quraan oo dhallaanku lagu baro aqoonta maadiga iyo midda diiniga ahba. ku darso oo jasiiraddan ma laha wax internet ah iyo sidoo kale adeegyada isgaarsiinta nooc kastaba oo dadka ku nool waa kuwo aan la socon ama wax badanba aan ka ogeyn dunidan aynu ku nool nahay iyo dhacdooyinka maalinlaha ah ee ka dhaca. luqadda jasiiradda looga hadlo waa luqadda Baajuuniga oo dabcan si weyn ugu dhow luqadda Sawaaxiliga ah, taasi oo ka dhigan in dadka ku nool jasiiraddan aysanba garanayn luqadda afkeena Soomaaliga oo aysanba ku fahmayn haddii aad kula hadasho. sidoo kale jasiiradda ma laha wax cisbitaal ah. dadka xanuunada yaryar uu soo rito waxay heli karaan dawooyin kaalmaati ah sida qandho jabinta oo kale, halka dadka baahiyaha caafimaad ee waaweyn qabana ay yihiin kuwa loo soo qaado sida magaalada Kismaayo oo kale. haddaba waxaa jira jasiirado kale oo ku yaala Soomaaliya iyo dunida kuwaas oo aan warbixino idinkaga soo diyaarin doono insha Allah. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena. mahadsanid.